marka taa haddaanu aniga wiilkiiga maarmin doo hooyadii guri ha u kirey waan soo booqana hooyadii bay noqotay doo hooyadii gurigii ibtila kuma hooyadii way ku noolaanaysaa waan ogolay kamana fasax qaadanayaan hooyadii in hooyadii guri ku noolaato uma marayo iikaadi inaka adiga ku qaba uma fasax qaadasid in hooyada ay guriga timaado laakiin waxaad rabtaa inuu adiga fasax kaaga qaaday oo ogolaansho hooyadii ana guriga ka masuula laakiin hooyaday inta doonta ku nool walaalahay baa ku noolaanay isaga fasax ugama qaaday kamana masuul aha reerkayga wixii imanaya wixii ka baxaya waay waxaana jeceshay inuu ku ogolaansho hooyadii kaaga qaado hooyadii walaalkii haduu imanay maxay ku kala duwan yihiin hooyada iyo isaga hooyadii furitaan baa sabab saaba ma jirto wax la yiraahdo gabadhuna qaraabadeeda xor weeyaan oo guriga firiga iyo guriga u fasaxay ninka qaraabadiisuna gaar ahaan hooyadii baa la magacaabay guriga marka la keenayo waa in xaaska idan la weydiisto oo haday diidana maamada meel kale loo raadiyo ayu sharcin hada waxa muhiim ah in loo daayo inta guriga mas'uulka ka tahay imika odayaashan fadhiya waxaad muddo xogeen hablaha yara cadaadinayeen oo aragtidooda la yaabaneen ma ahayn aragtida qofka binaadamka la yaabo raybu qabo rigiisa loo tixgeliyo haduu ku qalday haduu ku saxsay marka waa in adan rayga la wadaagto marka kiisa xaw ku qaadanaysa isaga u tala الجنات تحت أقدام الأمهات برسوله يجوب ما شاء الله والدين ما تفرس عليه الصلاة والسلام عجاه هو يدي مشننا دقيقة لكن عاد بدي دمود ودي دي ما تفرسها صدق هدي تجيان قبل هو يدي هالك قائد لا فوي كان جيلو خدني كيف بعزها ضد السي ويلا شيء قبلها هي دحتالو ومسلم بقى مسوا قالوا ومسلمين صومالية أوكي نظامك قري جودا معمولة أما قري أي كوهجان أما يسكو قرصدين مشاريع إسلام با مسواميد قالوا وشريعة الإسلام كوانا ضد مسلمين ورك واعدي هاي ورك هذا لبدا جوابات بهاللي إن يجونا مسلمين قريجا شرعي لغو السينة وهاك إسلامك يجونا قريجا ده إن دين إسلام كما مولان أنت هذا جوابت هاللي جوابت سؤال جوابت ويعدها قريجا hooyadu waa hooyadii guriga aabuhuna waa aabihii guriga mid walbana xuquuq buu leeyahay walahunna mithlu alladhi alayhinna bilma'ruf walirrijali alayhinna daraja wa ayat qur'aan dumarku xuquuqda ay leeyihiin mid lamida lagu leeyahay ninkii xuquuqdu leeyahay mid lamida xaaskiina leedahay raggu hal darajay la dheerihiin baa la yidhi oo aan loo sinayn درجة maxay tahay waa darajada qawaamada waa guriga iyo hoggaankiisa waa mid ayada kale Ilaahay ku sheegay ar-rijaalu qawwamuna 'ala an-nisaa isaga ay tahay guriga mas'uulka koobaad ka ah isaga in tahay inay reerkiisa iyo xaaskiisa xataa uu toosiyo marka gurigan ninka mas'uulka ah isaga oday ka ah hooyaduna waa hooyadii guriga wixii arrimaha ku saabsan wada tashi وأمرهم شورى بينهم لكن قوانك قبل دميستا إيالي مركا لا تشهدو وضيق القريقا إسكالي لبا أودودو السمن معه هدي لبا أودودو السمن نقول لها ووركا قالة دي شرعي قالة دي قريقا سمن إسنان كرو وكي إلهي قرآنك كشي شيء كستؤو تشرا لبا أودودو السمن هدو كأحيو مجري كرو لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا صمدا يقولكني هل إله إنه ليه هو ماموله هل ربي وحاكو تصيا حاجاك سندي اسكو توسندي النظام كي أي ولي قلوا أركبي كسعدا هل جهة ماموش هذي لوجه يكبض مامولي لهاي ويفسادي لهاي صورة قلمة هذا الدولة دن أما الدولة ده لما مدحوينه اسكو أود الدولة ما مامولي كران شركة لبد منيتشر وإسكو أودا ما مامولي كران مايا هو حبديه إسكا عدواه كوريغا نينكا أوديكا هو يدنا ومروة محترمه وهو يدي كوريغا هدي تمادو سؤاشا قرابة هدي تمادو قرابة دنكا قبرنا كسعوتنا كوريغا حقوق بيكول هذا هاي كارهان هدي والد كيهين قرابة حقا نينكا كسعوتنا كوريغا حقوق بيكول يهين كارهان هدي والد يهين ما jirto wax la yiraahdo gabadhuna qaraabadeeda xor weeyaan oo guriga firiga iyo guriga u fasaxay ninka qaraabadiisuna gaar ahaan hooyadii baa la magacaabay
guriga marka la keenayo waa in xaaska idan la weydiisto ya oo hadday diidana maamada meel kale loo raadiyo ayu sharcin hada waa sharciga kufriga iyo gaalnimada waay sharci kufri waay sharci islaam ma aha hooyada maamada guriga iskale ninkeeda hooyadii iyo aabihii gurigeeda idan weydiisan maayaan lianna ninkeedaba iyaga iskale nabigeenu sal alayhi wasallam wuxuu yidhi anta wamaaluka liabiika nin buu la hadlayay wuxuu ku yidhi adiga iyo xoolahaagaba aabbahabaa idin leh hooyadu waa kasii xaq weyn tahay ya haddiiba ninkaagii la yeeshay oo hooyadii leedahay ya ninkaaga ciddii lahayd see baa guri loogu diidi isagii baaba la yeeshaye waa midda labaade haddii adiga laf ahaantaada hooyada ah waalidkii ninkan dhalay inta lagu afgaran waayo ay ku yidhaahdaan waryaa middani nama anfacaysee fur waa lagu eryi marka hooyaan guri u diidi idan ha lay weydiisto guri kale ha loo kireeyo ay sharcin hada qaraabo goysnimo intaa leeg waxa laga hadlay haddana waa waalid waxa laga hadlo haddana waa waalid waaye qaraabo kale xataa hadday ahaan lahayd bacdu shari ahwan way isdhaami lahayd laakiin waalidkiibaa guriga loo diidiyo idan ha weydiisteen waa thaqaafo iyo dhaqan inoo yimid oo soo guuray waaye waa dhaqan la soo minguuriyey oo aan ahayn kii islaamka aanan ahayn kii bulshadeennu ay lahaan jirtay war miyaynu lahaan jirnay ma dhaqan waxaan lahaan jirnay hooyo meel kale ha loo raadiyo la yidhaah maya ama xagga xaaska ha ka timaado ama xagga ninka ha ka timaado hooyo gogasha ugu wanaagsan baa loo dhigaa cuntada ugu wanaagsan baa la siiyaa guriga idan ma weydiisato iyadaa iskale aabba waa sidoo kale ama dhanka xaaska ha ka yimaado ama dhanka ninka ha ka yimaado waalid baa idan weydiisanee adari dhaafi meel kale u kireen naagta sidaa qabtay in la eriyo waayo in la fiijiyo waayo taasi naag maaha xaas maaha haddayna waalidkiiba ogolayn oy gurigiiba ka sheemayso u diidayso xaaskaasi muxuu yahay ya malaha naag caddaan aad qabtaan naaga yurubiyaana maad soo guursateen gabadhaas soomaali maahaan u malaynay waxaasi dhaqan maaha la dhaqankeenna islaamkana maaha walaa dhaqan diinteenna ka soo jeedana maaha waalidku madaxuu saaran yahay xaqa ilaahay siiye waa xaqiisa midka ku xiga ma garata xoolahaaga waalidkaabaa iska leh alimaamu axmed caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay xataa inuu baahidiisa xoolahaaga ka qaato keliya meehe xoolahaaga intuu qabto wax ka sadaqaysan karaa waalidku addoontaada kuu joogta buu waalidkaagu xorayn karaa isagoon idanku weydiisanay alimaamu axmed fii kitaab ilwarac buu saa ku leeyahay marka waa yaabay gabdhihii iyo wiilashii baa doodaya boqolyaha tiktoka ku jira oon habeen dhaweyd ka hadlayn ma kuwaasaa doodaasi dhex taalla hade kuwaasi waxaan u malaynaa waxaan ugu cudur daaraynaa islaamba kama warhayaanba dhaqan islaamna intooda badan kama warhayaan mushkilada haysata waxa weeye doodahan waxa keenaya thaqaafada iyo dhaqamo kale lasoo maqlay lasoo arkay markaasaa waxa weye guryihii islaamka la doonaya in lagu maamulo wax foolxun waaye nacam doodahan waa doodo lasoo minguurinaya wey telefishin ha ka dambeeyo idaacadi ha ka dambayso waa wax lasoo minguuriyey ummado kalea laga soo qaaday oo dood u dhex taallo soo ma markaasaa dhallinyaradii muslimka la dhex keenoo la yidhi doodan ka dooda war maxaan ka doodnaa wax jiraba meehe dhaqankanagiina ma aha diintanaduna ma qabto ma gaalaan nahay markaan ka doodayna hooyo iyo aabbo lama soo dhowayn karee bannaanka ha la geeyo ma gaalaan nahay mise muslim baan nahay su-aashaa in la weydiiye waay telefishinka waxaa keenay ummadda dhex dhigayna waxaa loo baahay in la yidhaahdo war ma gaalaad doodsiinaysaan mise muslim baad doodsiinaysaan aslanba su-aashaasi inay timaadaa khalad ah wallahu aclam